madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo safar shaqo ka rooga magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ya kulan la weelday madax ku socotay hay'adda USAID. madaxweyne Laftagareen iyo madaxdan ku socotay hay'adda USAID oo gaaday kulan dhowr saacadood socday isla markaasna ay ku hadleen taageerowga ciidanka daraawiishta koonfur galbeed, hirgelinta mashaariicda horumarineed, taageerowga howlgallada socda ee la kicib tirahay argagixisada iyo daadejinta dhismo golaha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed. madaxda ku socotay hay'adda USAID iyo madaxweyne Laftagareen la wadaagay warbixin ka saabsan hay'adda iyo dadaaladii kuwada guutaan deegaanada koonfur galbeed, dhaniyada samatabiyowga dadka saameynta ka weelay abaaro, hirgelinta mashaariicda horumarineed, taageerowga dhisowga golaha deegaanka degmooyinka iyo siyaanbaqaadowga dadaalada lankajaara ciribtirka argagixisada Al-Shabaab sidii lagu sifeeyay lahay guutaan dalka gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed. madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxda ku socotay hay'adda USAID ku mahadnaqay dadaaladii ku wadan guutaan deegaanada koonfur galbeed maynuusa tilmaamay dowladdu soo hogaamiyo intii diiradda saara doonta sidii walanku gobada lahayd samatabiyowga dadka saameynta ka weelay abaaro, ciribtirka argagixisada Al-Shabaab, tababarowga iyo tayayowga ciidanka daraawiishta koonfur galbeed, hirgelinta mashaariicda horumarineed iyo dhisowga golaha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed. agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada koonfur galbeed Maxamed Ali Ibrahim Bandhawo oo goobroka ay kulanka madaxweyne Laftagareen iyo madaxda ku socotay hay'adda USAID iyo markii dhamaaday kureed warbaahinta dowladda ku warbi walyaabay madaxweynaha iyo madaxda ku socotay hay'adda USAID iyo diiradda ka saareen. Bismillahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. maanta taariikhday tahay 2 bisha Oktoobar sanada 2022 maalin Axad ah. waxaan ku suganahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. wafdi uu hogaaminayay madaxweyne Abdicasiis oo maalintii shalay ahayd ay soo gaaray magaaladan ayaa waxaa maanta kulamo muhiim ah oo la qaatay madax ka socotay USAID iyo sidoo kale TIS Plus oo runtii kamid ah hay'adaha maxalliga ah ee ka howlgala deegaanadan koonfur galbeed. madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ah madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya oo ay wehelinayaan agaasimaha guud iyo la taliyaal ka tirsan dowladda koonfur galbeed ayaa waxay kulamo la qaateen madaxdan ka socotay USAID iyo sidoo kale TIS Plus ayadoo laga wada hadlay xaaladda guud ee deegaanada koonfur galbeed iyo wada shaqeynta TIS Plus iyo sidoo kale USAID ay ugu muhiimsan tahay dhismaha golaha deegaanka sidoo kale in taageerada dhanka ciidamada daraawiishta ee dowladda koonfur galbeed ee sida gaarka u leedahay iyo sidoo kale sidii xoreynta socotay dagaalada socda siday kaalin ay ugu qaadan lahaayeen USAID iyo sidoo kale TIS Plus. wuxuu madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxdan u gudbiyay xaaladaha guud ee ka jira deegaanada koonfur galbeed, baahiyaalka muhiimka ah oo runtii loo baahan yahay bulshada iyo guud ahaan deegaanada koonfur galbeed loogu baahan yahay dhammaan la wadaagay hay'adahan maxalliga ah uu maanta kulamada la qaatay. sidaad ogtihiin hay'adahan USAID waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa dhismaha golaha deegaanka sida waagii degmooyin badan oo laga soo sameeyay ugu dambeysay degmada Xudur oo daraad ee golihii deegaanka ay isdoorteen kadibna ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka. runtii wada shaqeyntaas quruxda badan iyo sidii loo wada xoojin lahaa iyo sidii kaalintan shaqada maanta meesha ay taagan tahay sidii loo sii dhaqaajin lahaa oo meesha ay joogto meel kale kasii wanaagsan lasii gaarsiin lahaa lana sii xoojin lahaa wada shaqeynta ka dhexeysa hay'adda USAID iyo TIS Plus iyo dowladda koonfur galbeed ayaa runtii laga wada hadlay iyadoo oo madaxweyne Abdicasiis iyo madaxda USAID iyo TIS Plus ka socdeen ay isku afgarteen in la wada xoojiyo wada shaqeynta muhiimna ay tahay in la adkeeyo wada shaqeynta ka dhexeeya. aad iyo aad ay mahadsantihiin. Billahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. madaxweyne Laftagareen iyo la kawada maalmo intii uu ka sugnaada magaalada caasimadda ee Nairobi maynuusa kulamo shal duwan la weelada doonay madaxda ku socotay hay'ado sugan kula hadal doono doorjiga iyo ku qaadada lahaayeen gurmudowga dadka saameynta ka weelay abaaro, hirgelinta mashaariicda horumarineed iyo ciribtirka argagixisada Al-Shabaab sidii door muhiim ah ku qaadada lahaayeen. Faisal Maxamed Isaaq, TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed, Baydhabo.